السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أديت أصحابته أنت channel كان كحيران channel كان أقوم كرسي رمضان راجع رمضان أكاديمي أونلاين تكحيران صور هذا قلب وناكسن وحان كوجد تشرني عشر كلابات وها وأنت وده عيسى الله وبرد حسوق هذا ني تصالة كوبات تصالة اللبات labada waxa la raadinayay fogaanta u dhaxaysa laba barood sidoo kale tusaalahan waa tusaalaha saddexaad buugiina manhajka kuma qorna waxaan rabaa inaad si fiican u fahantaan adna ila socotaan tusaalaha saddexaad wuxuu u dhacayaa sidan raadi fogaanta u dhaxaysa laba barood kasta barta ba ama ba waxa lagu sii 4.2 minus 3, minus 1 barta taana 3.2 3.7 barta jana minus 1 minus 8 minus 1 minus 8 minus 2 minus 8 taasana la siiyaa daba sabuurada aan wada tagno daba sabuurada aan ku wada xalino adadeeda ila socda waxa hubaal ah hadii aad ila socotaan inaad fahmi doontaan kasoo jawaabi doontaan su'aal kasta ee nila weydiiyo saddexaad qaybtiisa ba loo fogaana nala sii fogaanta koowaad oo ah 4.2 4.2 waxaa kaloo lagu sii fogaan labaad oo ah minus 3, minus 1 haddaba qaabkan laba barood marka lagu siiyo waxaa muhiim ah inaad fahmi kartid barta koowaad waxay tahay bartan koowaad halkan waa x1 bar kasta yani lagu sii x1 waa 1 u qaado halkan waxa waa x2 waa 2 hadii aad fahansantahay fillahi alxamd qaacidadii lagu helayay fogaanta u dhaxaysa laba barood waxay d equal square root xid laba jibaar open round bracket bel 4 x2 minus x1 all squared plus y2 ka xalinayso qaacidadan markasta waa inaad xifdisantahay minus y1 all square fogaanta u dhaxaysa laba barood waxaa lagu helaa qaacidadan waa square root xid laba jibaar x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared hadaba aan ku bedelano kaliya wax kale ma sameynayaan by substitution aan sameynayna habka bedelashada d equal waan naqaan by substitution aan sameynayna habka bedelashada waan ku bedelan doonaa haleenahay halkaan waxa inoo qoran x2 maxaan haysanaa x2 waxaan haysanaa minus 3 soo qaadane minus 3 bracket fur halkaan bracket furan x2 waxaad haystaa minus 3 x1 waxaan haysanaa 4 sharcigan sharcigan halkaan yaallo soo qaado minus 4 dhe minus intee la keen minusku waa sharci dan qoyska ku xir all square dhe plus qoyska la fur y2 waxaad haystaa minus 1 y2 waxaan haysanaa minus 1 minus sharciga soo qaadana y1 waxaan haystaa 2
qoyska ku xir danna square saar whole square dheh fogaanta u dhaxaysa labadan barood waxay kula mid tahay haddaba shaqadan yartaa qabo shaqadan maxay tahay waa -3 -4 labadan waa isku calaamad isku dar waxay noqonaya -7 -7 kor xaa saaran square labaa dul saaran haddaba labada dul saar labada jibaarka dul saar balaas dheh -1 -2 na waxay noqonaya -3 kor xaa saaran square halkaana square dul saar sidaa darteed fogaanta u dhaxaysa laba barood oo lasoo gaabsho d waxay kula mid tahay minuskan laba jeer isku dhufo jibaarka kore 2da waxay kuu sheegay inta jeer ee tirada hoose aad isku dhufanaysa haddaba toddobadan laba jeer isku dhufo toddoba ku dhufo waxay noqonaya 49 minuskan laba jeer isku dhufana waa plus positive uu noqonaa pluskan soo qaado -3 laba jeer isku dhufo minuskan laba jeer isku dhufo waa plus 3 laba jeer isku dhufo waa 9 xidid laba jibaarkana sidiisa soo qaado equal le fogaanta u dhaxaysa laba barood oo la soo gaabsho d waxay kula mid tahay 9 plus 9 waa 18 waa 18 qoro xaawata halka 84 ku dar waa 5 49 lagu dar 9 waa 58 58 xidid jibaara ka saarayna haddaba certificate la soo baxay 58 xidid jibaarka tiro rationala ugu bixiso ma jidho saadri certificate soo qaado waxa dhahdaa calaamada xidid jibaarka square root 58 waxa ku soo bixi doona 7.6 hal shan halkaas ma ku dhaafaya maya fogaanta maadaama lagu cabir meter oo kilometer aysan haddana wadanin wax halbeeg ah raacinaya halbeeg raacinaya halbeeg af Soomaaliya raacinaya halbeeg ana soo baxay 7.615 ma dhihi kartid 7.615 ma dhihi kartid qalad waa dhibicda waxa inta ka jiro 615 aa loo aqrinaa waa waxaan dhameen hal xita qaybta ba waxaan soo baxay fogaanta 7.615 haddaba ta aan u gudubno ta iyaduna waxay u dhacaysaa ta 3.2 3.7 ay noo qoran iyaduna sabuurada aan wada tagno ardadeeda ila socda aan iska masana sabuurada aan iska tirtirno qaybta ta iyaduna qaybta ta waxay u dhacaysaa halusi 3.2 iyo waxa kale oo lagu siiyay 3.7 haddaba waxaan la weydiiyay fogaanta u dhaxaysa laba barood waxa waajib ah bartaan iyo bartaan labada barood ee lagu sii fogaanta lagu weydiiyay labadan barood inaad kala fahansantahay halkan waxa uu qoranay x1 halkan waxa uu qoranay y1 hadda jeer qaabkaas u sameeysanay barta koobaad x1 y1 barta labaadna x2 y2 sidaas ay lamid waxa leenahay waxa kale oo halkaas laga rabo inaad fahanto qaacidadaas inaad kor ka xifdisid square root laba jibaar x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square waxaan dhahnay fogaanta u dhaxaysa laba barood waxa lagu helaa square root xidid laba jibaar x2 minus x1 whole square
plus y2 minus y1 whole square haddaba aan soo qaadano waxaan leenahay d equal xidid laba jibaarka sidiisa usoo qaado leenahay inta halkan waxaa qoran x2 waxaana la siiyey 3 bil fur 3 saddex halkan waxaa qoran minus halkaa qalinka saaraya waxaa ku qoran minus laga jaray ay x1 waxaa ku qoran 3 ku xir qoyska whole square dhe plus qoys fur y2 waxaana la siiyey 7 todobo minus y1 waxaana la siiyey 2 whole square sidaa darteed fogaanta u dhaxaysa laba barood oo lasoo gaabshay d waxay kula mid tahay xidid laba jibaar sideed usoo qaada calaamadaas 3 minus 3 saddex ka jar waa 0 square waxaan leenahay 0 square garee plus 7 minus 2 na waa 5 haddaba 5 na square garee iyaduna square saaran square noo saar leenahay square saar iyaduna waxaan leenahay distance equal 0 laba jeer haddii la isku dhufto waa 0dii plus 5 kan laba jeer isku dhufo waa 25 waa 25 xidid laba jibaarka ayagana gele distanceha fogaanta u dhaxaysa laba barood wuxuu la mid yahay 0 plus 25 eber haddii lagu daro 25 waa 25 xidid laba jibaarka 25 haddaba 25 xidid jibaarka way ka baxdaa sidaa darteed 25 xidid jibaarka waxay ugu baxdaa 5 waayo 25 waxay ka imaatay 5 square kan iyo xidid jibaarkan oo half u qarsan yahayna way isla tagayaan halkan waxaa ka soo baxayo 5 maadaama pointiyada lagu siiyey aysan wadan wax cabira centimeter meter kilometer maadaama aysan wadan xaraacine halbeeg xaraacine halbeeg araacine haddaba taana jawaabta noo soo baxday waa 5 halbeeg haddaba su-aasha qaybteeda ja waxaana la siiyey -1 -7 -2 -8 -1 -8 -2 -8 haddaba sabuuradda aan ku wada xalino ardadeeda ila socda aan iska tirtirno ja tusaalaha saddexaad buugga manhajka kuma qorna si loo fahmayaana kugu soo daray waxaan filayaa inaad si fiican aad u fahmi doontaan insha allah janaalka xaga dhigataa wehel -1 -8 waxaa lagu siiyey barta a waa dhaha karta halkaas barta b na laba barooda lagu siiyey baraha inaad kala fahmi kartid waa barta kalena waxa waaye -2 -8 aa lagu siiyey -2 -8 haddaba labadan barood bartaan magacyada inaad ku qoratid waxay ku fududeynaysaa inaad jawaabtii si dhaqsil aad usoo saarto kan waxaa leedahay barta koowaad waxaa loo yaqaanaa x1 y1 waa barta koowaade kan waxaa loo yaqaanaa x2 y2 qaabkaas markaa u qoratid wixii dhan ha kugu fududaanayo leedahay saa darteed distanceha fogaanta u dhaxaysa labadan barood waxaa lagu helaa aalena xidid laba jibaarkaa soo qaadanaa waxaan leenahay bilfor x2 minus x1 all squared plus y2 minus y1 all squared y2 minus y1 all squared
y2 minus y1 whole squared y2 minus y1 whole squared waan ku bedelanaynaa markaan waxaa leenahay d equal fogaanta u dhexaysa laba barood waxaa lasoo gaabshaa d waxaa lagu helaa xidid laba jibaarisiis usoo qaado x2 ah inta ku qoran x2 waxaa nala sii minus 2 tusaalahan si fiican u fiiri waayo halka inta waa -1 inta waa -8 inta waa -2 halkaasna waa -8 fiiri qaabka iyo wadada marayno ku soo celcesho insha Allah x2 waxaa lagu sii -2 waa soo qaadana minuska halkan ku jira sharcigan waa soo qaadana x1 na wuxuu wataa -1 x1 ka waxaa gelinaa qoys kadibna qoysku waa ku xiraa whole bracket la gelinaa square waa dhaha balaaska sharciga soo qaado balaaskan waa balaaskan sharciga waxaa leenahay y2 maxaa nala sii bilfur y2 waxaa nala sii -8 minuska sharciga soo qaado y1 na waa -8 iyaduna waa -8 then whole square dhe kan qoyska waxaa loo gelinaa sababtaa kan qoyska loo gelinaayo labada minus way isku dhacayaan kana sidoo kale labada minus way isku dhacayaan fogaanta u dhexaysa laba barood waxaa lagu helaa xidid laba jibaarka waxaa leenahay -2 dan sideeda usoo qaado -2 sideeda usoo qaado minuskan iyo minuskan haddii la isku dhufto waa plus minus times minus plus 1 kana sidiis usoo qaado then whole square dheh square saar hadeer shaqadaa qabanayna si fiican u eg balaaska dhexda ku jira soo qaado balaaska soo qaadayna waa kan -8 kan sidiis usoo qaado asna -8 sidiis usoo qaado minuskan minus times minus waa plus waa positive 8 kana soo qaado all square dhe waxaa leenahay fogaanta u dhexaysa laba barood oo d loo soo gaabsho waxay kula mid tahay -1 kan iyo +1 kan way kala jarmayaan waa -1 labada weyn waxay wadataa minus saa darteed 1 plus haddii laga jaro -1 waaye square kor saaran square dul saar balaskan dibadda yaa lasoo qaado balas -8 iyo +8 na way kala jarmayaan waa 0 square garee aa dhehe 0 laba jeer isku dhufo ka sababta squareka qoyska loo geliyo xaawa minus uu sitaa minus uu wataa equal fogaanta u dhexaysa laba barood oo d loo soo gaabsho waxay la mid tahay -1 laba jeer isku dhufo waa 1 0 laba jeer isku dhufana waa 0 waxay kula mid tahay 0 plus 1 0 1 kan 1 plus 0 equal to 1 haddaba xidid jibaarka 1 wuxuu ugu baxaa laba jibaarka 1 wuxuu ugu baxaa 1 ugu baxaa saa darteed waxaa dhahaynaa fogaanta u dhexaysa labadan barood barta -1 -8 -2 -8 waa hal beeg halka markaa qorta waxaa raacinaya hal beeg maadaama aysan wadan wax unital yani labada fogaan waxaa raacine hal beeg aa raacine hal beegga ha ka tagin 1 kaasaa noo soo baxay ardaydeeda inta janaal ku xiran cashirka haddii aad dhegaysateen ardayda Soomaaliyeed yaa laga xasdin janaal subscribe saar like share iyo comment ku samee